waalid maanta waxaan kula wadaagaynaa 12 calaamadood oo haddaad ilmahaga ku aragto ku tusinaya kuuna cadaynaya kuuna muujinaya ilmahan inaad ka badbadisay, inaad manyaca ka badisay, inaad ciyaal maamo ka dhigayso iyo in markay koraan aanay isku filnaan karin. haddaad calaamadahan aragto waxaad ogaataa ilmahan wuxuu aaminsan yahay wax walbuu rabo inuu helo markuu rabo, siduu u rabo iyo waqtiguu rabo iyo goobtuu ku rabo, shuruud la'aan. ilmaha ma waxbaad u tartay mise waad burburisay? waa inaad isweydiiso. ogow wax walba oy rabaan haddaad siiso adoo qalbi fiican oo waalidnimo ku qaadayso, waxaad ka qaadaysaa ilmaha waxa ay ugu baahida badan yihiin maanta adduunka alla subxaanahu wa tacaala marka laga yimaado, oo ah dadaal inay ula yimaadaan waxa marka ay rabaan, oy dadaalaan, oy halgamaan. weli ma isku aragtay ilmahaaga waxaad arki kabaha gashan la, xariga kabaha gashan la, shaarka gashan la, boorsadooda alaabta ku ridan la, waad soo ordi adigaa u samayn. ama gabadha ka weyn yaad oran naawiilka waxaa u samee, gabadha waxaa u samee. haddaad taa samayso ilmahan asxaan uma samayn sida waxaad ka qaadaysaa maxay? waxaad ka qaadaysaa shayga ugu baahida badan yihiin adduunka oo aad dadaal inay la yimaadaan. waxaad ka dhigaysaa waxa af ingiriiska lagu yiraahdo ilmo aaminsan self entitlement. wax walba shuruud la'aan waa inaan helo. 2 calaamadood baan ku tusi, labadooda xalla waan sheegaynaa. 1, ilmuhu hadduu kugu yiraahdo hooyo, aabe, dharkayga haddaan dhaqo maxaad isiini? cuntadan alaabta ku cunay haddaan dhaqo maxaad isiini? jawaabtaadu ha noqoto waxaan ku faraxsanahay inaad tahay qof mas-uuliyad qaadi kara, waxayna i tusaysaa inaad korayso. bas waxba ha ku siinin hawsha, waayo waxaad baraysaa in waxan yahay shaygii laga rabay iyo mas-uuliyaddii saarnayd. haddaad lacag siiso ama wuxuu rabo siiso, wuxuu u qaadanayaa wax walbo mas-uuliyaddooda markay sameeyaan inay adiga wax kaaga helaan. beri markaad kala tagtaan marka cid wax ku siinaysa male, iyagana waxba ma qabsan karaan, waayo adaabiiye. qodobka 2 ama calaamada 2 ee haddaad ku aragto ku tusaysa ilmahan inuu aaminsan yahay waxaan ku magacawnay self entitlement, oo waxaan rabo waa inaan xilligan rabo helo, shuruud la'aanna aan helo. masalan waxaad ku tiri waxaas qabo, gabadhaada ama wiilkaaga wuxuu ku dhahayaa ma qaban karo keligay, ama ordo adigu qabo. haddii sida ay yidhaahdaan ma aha inay caajizan yihiin, mana aha adiga inay ku diidan yihiin, laakiin adiga waxaad gaarsiisay waxa ay psychologists ugu yeeraan dependency conditioning, oo ah waxaad bartay wax walba inaad u qabato, waxaad bartay wax walba afka inaad u geliso, waxaad bartay wax walba siday u rabaan iyo markay rabaan iyo shuruud la'aan inay helaan. waxay gaareen marxaladda la yiraahdo dependency conditioning. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay oo xalku noqonaya inaad hadda barto ood ka bilowdo mas-uuliyadaha yaryar. waa maxay? weelkay wax ku cuneen ha maydhaan, kabahooda ha xidhaan, boorsadooda iyagoo alaabta ha ku ritaan, dharkooda meesha lagu dhaqo ha geeyaan, guriga hadday waxalayaan ha sameeyaan. dr Julie Holmes oo psychologist carruurta ku takhasus wuxuu leeyahay carruurta marka yaraanta la baro mas-uuliyadaha noocaasa, dharkooda inay iyagu meel saartaan, alaabtooda maydhaan, kabahooda xidhaan, boorsadooda iskuulka wax ku ritaan, marka ay koraan waxay noqonayaan carruur 2 shuruuda leh ama 2 sifa leh: higher confidence, kalsooni aan caadi ahayn, iyo self dependency, inay iyagu isku kalsoon yihiin, cid kale aanay ku xidhnayn. waana midaan rabno. waxaan leenahay mas-uuliyadda waalidku ma aha inay soo saaraan carruur habi ah oo faraxsan, laakiin mas-uuliyadda ina saaran waa inaan soo saarnaa carruur diyaarsan. la soco 10 qodob ee dambe ee waalid lagisaad ka heli doontaan. allah awlaadina badbaadiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullah.